fadlan youtube channelka aad daawanaysa waa qis BR official fadlan hadda nagu cusub tahay subscribe saar oo furka gambaleelka sina share gareey si asxaabtaada ay u soo gaaraan barnaamijka iyo muuqaalada aad ku quruxda badan ee aan soo gelino youtube channelka waad ku mahadsan tahay la socodka ila jaanqaadka wararka yaga iyo barnaamijyada aad ku xiisaha badan ee halkaan soo gelina وزاريه وقتiga dheeraa ee Soomaaliya Soomaaliya oo ku dhawaaqay inuu iscasilay kadib markii golaha shacabka shalay xukuumadii wasiirka koowaad oo ka kalsoonida ay kala laabteen madaxweynaha ugu waqtiga dheeraa la shaqeynta ra'iisul wasaarihiisa oo ka baxay ballanqaad uu sameeyay shacabka xilli uu magacaabayay 3 sano iyo bar ka hor ra'iisul wasaarihii shaqada ka tagay safaaradda Mareykanka oo war ka soo saartay go'aankii golaha shacabka ee shalay xisbiyada mucaaradka oo ka soo horjeestay kalsooni kala noqoshada shalay xukuumadii Xasan Cali Khayre madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo si ku meel gaar u magacaabay ra'iisul wasaare cusub mid ka mid ah falanqeeyaasha siyaasadda Soomaaliya oo soo dhaweeyay xilka qaadistii Khayre محمد حسن محمد هو كده نفسان رئيس الوزراء وقتiga dheera ee soo baray Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inuu iscasilay kadib markii golaha shacabka shalay xukuumadii wasiirka koowaad oo ka ahaa kalsoonidii ay kala laabteen Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka sheekeeyay waxqabadkiisii tan iyo markii xilka ra'iisul wasaarenimada loo magacaabay 23 bishii February sanadkii 2017 oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka xilkaasi uu magacaabay Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in xukuumadii uu soo dhisay ay ku guuleysatay howlo fara badan oo bulshada Soomaaliyeed ay ka sugayeen sida dhisidda ciidanka kobaca dhaqaalaha la shaqeynta caalamka iyo dhinaca amniga oo si hadlay waxa uu sheegay arrintii shalay dhacday in ay tahay ujeedo laga leeyahay muddo kororsi asaguna horay uga digay waxaana uu sheegay in wixii shalay ka dhacay baarlamaanka sharci darro tahay sida awgeed asagoo wax waliba oo u tanaasulay badbaadinta dalka iyo shacabka Soomaaliyeed si uu tusaale ugu noqdo wasiirkii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa uu sheegay in awooddan ugu sarreysa uu ugu shaqeeyay dalka iyo shacabka Soomaaliyeed waxaana uu ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay iska cafiyaan intii xilka ra'iisul wasaare uu hayay 3 sano iyo bar haddii wax laga tabanayo oo qalad ay ka dhaceen ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa barwaaqo dalkan rajo ayaan ka leenahay kulligeen dalka ayaa kulligeen inaga weyn cid waliba waa inay aqbashaa in dalka loo turo maanta waa maalinteedii aniga ayaa u turay dalka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay waxaan idinkugu adeegay awoodii ugu sarreysay oo aan awoodo haddii ay wax iga khaldameen waxaan idin weydiinayaa inaad cafisaan wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheera ee la shaqeeyay madaxweyne soo magacaabay 3 sano iyo bar Xasan Cali Khayre oo shalay si lama filaan ah degdeg xukuumadii wasiirka koowaad uu ka ahaa golaha baarlamaanka kalsoonida ay kala laabteen oo qaatay ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre ayaa dadka qaarkood waxay ku tilmaameen mid lama filaan ah iyadoo waliba laga baqayay in ra'iisul wasaaruhu aanay aqbali doonin habka kalsooni kala noqoshada xukuumaddiisii ee shalay baarlamaanka ay u mareen dhinaca kalena madaxweyne ugu waqtiga dheeraa la shaqeynta ra'iisul wasaarihii uu soo magacaabay ayaa ballanqaad ugu sameeyay xilliga uu magacaabayay ra'iisul wasaarihiisa 3 sano iyo bar ballantii uga baxay shacabka sida warkan uu ku eegayo wariyahayaga Cabdi Fataax Cabdiqaadir Shariif Iqbaal waxaa maalinimadii shalay taariikhdu ay ku beegneed 25 bisha toddobaad ee 2020 si lama filaan ah isku bedelay masraxii siyaasadeed iyo ballanqaadkii madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo oo hore u dhawaajiyay inay isla shaqeyn doonaan muddo xileedka 4 sanadood oo madaxweynaha ka ahaan doona dalka Soomaaliya asaga iyo ra'iisul wasaaraha waagaasi magacaabay Xasan Cali Khayre oo shalay si lama filaan ah xilka loogu tuuray
23 Febraayo 2017 ayay ahayd markuu madaxweyne Farmaajo uu u magacaabay Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya. madaxweynaha waagaas u ballan qaaday shacabka Soomaaliyeed in ay isla dhameysan doonaan soo magacaabo ra'iisul wasaare markii aan arkay dalka inuu u baahan yahay si degdeg ah inaan ugu helno xukuumad kadib markii muddo dheer doorashooyin lagu jiray waxaa ii caddaatay inaan magacaabo Xasan Cali Khayre inuu dalka ka noqdo ra'iisul wasaare anigoo ku doortay inuu yahay shakhsi u qalma jagada aqoon ahaan iyo khibrad ahaan anigoo arkay in aan wada shaqayn karno bacdama dalkan muddadii 12 sano 12 sano lasoo dhaafay dowladdii timaadaba ay isbeddelkeedu badnaa waxaan go'aan ku qaatay inaan magacaabo anoo og inaan wada shaqayn doono insha allah hadduu ilaah yidhaahdo. waxaa halkan ku burburay balantii in ay wada shaqayn doonaan ayna isla dhameysan doonaan iyadoo shacabka Soomaaliyeed ay ka walwalsan yihiin sida ay arrin noqon karto iyo isbeddelka lama filaanka ah ee xilka loogu tuuray ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre. aad buu baahsan yahay ujeedada Xasan Cali Khayre kalsoonida uu ku waayay golaha baarlamaanka ayaa siyaasiyadda qaarkood waxay ku tilmaameen kala aragti duwanaanshaha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha soo kala dhex gashay waxaana dadka qaarkood ay sheegeen in Xasan Cali Khayre uu jeclaa in doorasho dadban dalka ay ka dhacdo isagoo wata xisbi u gaara dhinaca madaxweynahuna waxaa la sheegay in doorasho shacab dalka uu galo hal xisbina madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ku shirtagaan oo musharaxnimada halkaasi xisbi ay ku yimaadaan arrimahaasi oo kala duwanaaday oge Xasan Cali Khayre baarlamaanka markii dambe lagu kiciyay. haddaba dhinaca beesha caalamka maxay ka yiraahdeen go'aankii degdega ahaa ee shalay soo baxay safaarada Mareykanka ayaa war ka soo saartay go'aankii golaha shacabka waa ka wariyahayaga Maxamed Xasan Maxamed. iyadoo maalinkii shalay ay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya sheegeen in kalsoonidii ay kala laabteen ra'iisul wasaarihii dalka Xasan Cali Khayre iyo waxaa arrintaasi war ka soo saaray safaarada Mareykanka ee Soomaaliya waxayna safaarada xustay inay walaac ka qabaan xaaladda dalka loona baahan yahay in dalka laga qabto dad ay ku sheegeen inay yihiin qaswadayaal. waxaan qaadi doonaa tallaabooyin ka dhan ah qaswadayaasha doonaya inay wiiqaan xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya ma doonayno in Soomaaliya ay qaado dhabo qaldan ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. Mareykanku wuxuu ugu yeerayaa dhammaan daneeyayaasha inay si iskaashi leh ula shaqeeyaan ayna raadiyaan tanaasul si loo yareeyo halista qalalaasaha dastuuriga ah. dowladda Mareykanku waxay ku boorinaysaa dowladda federaalka ee Soomaaliya dowladaha xubnaha ka ah federaalka baarlamaanka iyo dhinacyada kale inay sii wadaan wada shaqeynta si loo meelmariyo heshiiskii lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa sidoo kale lagu yiri war-saxaafadeedka ay soo saartay safaarada Mareykanka ee Soomaaliya wuxuuna warka ka soo baxay safaarada ku soo aadaya xilli maalinkii shalay ay xildhibaanada kalsoonidii kala laabteen ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre. Sanata Maxamed Yare xisbiyada mucaaradka dalka ayaa ka soo horjeestay kalsooni kala laabashadii shalay xukuumadda Xasan Cali Khayre sida warkan uu ku eegayo wariyahayaga Axmed Nuur Badri Yuusuf. warmurtiyada ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ay kaga hor yimaadeen xilka qaadistii lagu sameeyay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre. madasha ayaa si weyn u cabaarayay xilka qaadista lagu sameeyay Khayre iyo xukuumaddiisa taasi ay sheegtay inay aqladeynayso go'aanadii shirkii Dhuusamareeb isla markaana looga dan leeyahay muddo kororsi aan sharci ahayn. warmurtiyada ka soo baxay madasha ayaa waxaa kaloo lagu sheegay in madashu ay ka xun tahay in xilligan uu madaxweynuhu hormuud ka noqdo qalalaasa siyaasadeed. madasha ayaa sidoo kale ku baaqday in xilligan kala guurka ay muhiim tahay ilaalinta sareynta sharciga iyo xasiloonida dalka waxayna si adag ugu digtay xanaan kasta oo la isku dayo muddo kororsi aan sharci ahayn. ugu dambeyntii warmurtiyeedka ayaa waxay ku sheegeen ama ku soo jeediyeen in la ilaaliyo isfahamka siyaasadeed ee bilowga ah iyadoo laga fogaanayo wax kasta oo keeni kara qalalaasa siyaasadeed. Axmed Badri Yuusuf
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayaa si ku meel gaar u magacaabay ra-iisul wasaare shaqada sii wada shalay markii golaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalku ay soo saareen go'aan ah in kalsoonidii lagala laabto xukuumaddii ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxa uu soo saaray warqad oo ku ayadayo go'aanka golaha baarlamaanka dabadeedna waxa uu ku xijiyey warqad kale oo ku aadan in ra-iisul wasaare ku-xigeenkii xukuumaddii kalsoonida lagala laabtay mahdi maxamed guuleed khadar shaqada uu sii wado inta ra-iisul wasaare laga soo magacaabayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayaa haddaba xilkaasi si ku meel gaar ah ugu magacaabay mahdi maxamed guuleed khadar in xafiiska uu sii joogo inta laga buuxinayo jagadii uu bandheeyey xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya haddaba ra-iisul wasaaraha ku-meel gaarka ah ee shaqada sii wadi doono mahdi maxamed guuleed khadar ayaa shaqadii ugu horreysay xalayba qabtay waxaana uu xilka ka qaaday xogaye xilkaasina wuxuu u magacaabay xogaye kale waxaana la sheegay xogayaha xilka laga qaaday inay aada iskugu dhowaayeen ra-iisul wasaarihii shaqada ka tagay xasan cali khayre mid ka mid ah falanqeeyayaasha siyaasadda soomaaliya ayaa soo dhoweeyay xilka qaadistii khayre abshir maxamed aadan suxufi falanqeeya siyaasadda soomaaliya waraysi wasiir radio dan waxa uu sheegay inaanay waxba isdhaameen khayre iyo farmaajo aadna uga faraxsan yahay inay isqaniinaan midkoodna masraxa uu ka tego waxaa kale uu sheegay in arrintan laga tahay mar horeba loo baahnaa inta weydba dadku way hayeen xuuxda iyo sheekada hoose oo diraysa inay kala tageen labadii nin oo ku sheekayn jiray ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu isuma khilaafaano waa isku labaystaano waa isla labaystaano waxaa ku hasaawi jiray inay durba kala jeesateen dadku way hadahayeen waxayna ahayd waxa loo tooghayay in ay meeladaasi qarsooni ay maalin qanaxdo maanta ayayna ku soo aaday inay qanaxdo markii hore waxaa ka adahay in la yidhaahdo isma qabanayno ilkaha iyo waxaa la yiri iyo carabka marka markii hore waxay ahayd doon laga jujubay inaan cilina isqabanayno ra-iisul wasaaraha iyo maxaa la yihahdaa iyo madaxweynuhu aanay isqabanaynin midaan isqabanayn haddaan aragto waa cidaan shaqahayn wax shaqaa mahayna wey macnaheed ma aananayn laakiin hadda waxaa la gudagaay xilligii foos way soo dhowaatay ee doorashada la geli lahaa nin walba fool baa haysa naftaa haysa meeluu xaqsuu raadinayaa waxaana la iska rabaa doorasho loo leeyahay oo dadka lagu raadin karo tanina waxay tahay mid lagu carqaladaynayo doorashadii iyo balamadii lagu soo galay galmudug iyo magaalada dhuusamareeb ee maamul goboleedka galmudug mid lagu soo carqaladaynayo haba kala tegeene waa mid lagu soo carqaladaynayo wixii balamaha oo magaalada lagu carqaladaynayo si kastaba ha ahaatee waxaan aada ugu faraxsanahay dadkii lagu daadiyey 4 sano madaxweynaha iyo brimeseerku markaa tagaan oo xasilooni siyaasadeed baan haynaa inay maanta iyagii u sugtaagan yihiin in weliba si sharci darraa oo aan habboonayn ra-iisul wasaarihii oo shaqo ku maqan in xilka loo qaaday aad bay farxad gelinaysaa abshir maxamed aadan waxaan salaamayaa ugu horreyntii shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan 23 February 2017 ayaa la ii magacaabay xilka ra-iisul wasaarenimada qiyaastii 1247 maalmood ayaa ka soo wareegtay muddadaas 3 sano iyo barka ah waxaan dalka Soomaaliyeed ugu adeegayay daacadnimo karti iyo hufnaan anigoo aaminsan inay ahayd waajib dalkayga iyo dadkayga iga saaran muddadaas xukuumadda iyo aniguba waxaan ku guulaysanay howlo waaweyn waxaa ka mid ahaa inaan dib u habeyn ballaaran oo dhaxalgal ah ku samayno ciidamada qaranka oo maanta soo gaaray meel ay u diyaarsan yihiin inay la wareegaan amniga guud ee dalka
inaan dib u habeyn ballaaran ku samaynay nidaamka maaliyadda dalkeenna oo dunidu noo soo istaagtay soo celinay kalsoonidii uu caalamku nagu qabay kuna qabay hay-adaheena dhaqaale oo inoo saamaxday in laynaga cafiyo deyn lagu lahaa dalkeenna muddo dheer dadaalkaasi waxa uu ku dhacay soo jeed iyo iyadoo la geliyey wakhti badan waxaan la dagaalanay musuq maasuqa waxaan gudbinay shuruucdii ugu badnaa ee xukuumadda ay gudbiso waxaan ku guulaysanay mushaarka shaqaalaha bixinteeda iyo mushaarka ciidanka oo bil walba laga soo bilaabo Janaayo 2017 uu qof waliba qaatay waxaan ku guulaysanay dowlad wanaag iyo amaano waxaan ku guulaysanay annagoo dib u soo nooleynay sharaftii ummadda Soomaaliyeed si loo ilaaliyo dhammaan guulahaas ay xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed gaareen dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo qayb ka ahaa rabana in la sii joogteeyo waxaa lagama maarmaan ah ilaalinta nidaamka awood isku wareejinta dalka oo si dimuqraadi ah u dhacda anigoo gudanaya waajibka arrinkaas iga saaran ayaan xukuumadda faray inay ka shaqeyso in dalku aado doorasho lagana fogaado muddo kororsi oo dhalin kara khalkhal siyaasadeed mid amni iyo mid dhaqaale waxaan ka shaqeynay isu keenidda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka isugu keenay magaalada Dhuusamareeb si go'aan loo dhan yahay looga gaaro doorashada hadda dalka ku soo fool leh waxaan isku raacnay in la isku soo laabto 15 Agoosto si loo dhammaystiro geedi socodka doorashooyinka dalka inkasta oo kulamadii Dhuusamareeb horumar fiican laga sameeyay haddana waxaa muuqataa in weli uu socdo fikirkii ku aadanaa muddo kororsiga oo salka ku hayay wixii maanta ka dhacay golaha shacabka fikirkaas oo aan mar hore ka digay oo aan aaminsanahay inuu keeni karo khalkhal siyaasadeed dalkana dib u celin karo ayaan waxaan mar kale xasuusinayaa ummadda Soomaaliyeed in dalka 4 sano mar ay doorasho ka dhacdo iyadoo xukunkii ay qoro isu dhiib inay tahay dhaqan sax ah oo dalkan lagu bartay ayna tahay kulligeen inaan ilaalino anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed anigoo og inaanay ku jirin ajandaha anigoo og inaan laga doodin anigoo og inaan loo codayn anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato si aan ugu tiro shacabka Soomaaliyeed qaybna aanan uga noqon khalkhal iyo dib u dhac siyaasadeed oo dalka ku dhaca mid dhaqaale iyo mid amni mid bulsho ayaan sida ummadda Soomaaliyeed ugu baratay waxaan u noqonayaa tusaale inaanan marna halkan xukun u joogin laakiin aan u joogay inaan shacabka Soomaaliyeed u adeego waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha oo fursad ii siiyay inaan shacabkayga u adeego golahaygii wasiirada oo igu garab istaagay inaan dalkan samata bixino shacabka Soomaaliyeed oo hiil iyo hooba ila garab taagnaa iina ogolaaday inaan soo hor istaago oo aan u shaqeeyo mar walbana garabkayga taagnaa iina hiiliyay waxaan u mahad celinayaa saaxiibada Soomaaliya oo xilliyo adag iyagana na soo garab istaagay ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa barwaaqo dalkan rajo ayaan ka leenahay kulligeen dalka ayaa kulligeen inaga weyn cid waliba waa inay aqbashaa in dalka loo turo maanta waa maalinteydii aniga ayaa u turay dalka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay waxaan idinkuga adeegay awooddii ugu sarreysay oo aan awoodo haddii ay wax iga khaldameen waxaan idin weydiinayaa
inaad cafisaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi